بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashirkeeni sideedaad oo aan kaga hadlayno sokorta dhacda afka qalaadna lagu yiraahdo hypoglycemia. Sokorta dhacda waa cillad ku dhici karta qof walba ma ahan mid u gaar ah dadka sokorta qaba. Sidoo kale sokorta dhacda ma ahan nooc ka mid ah cudurrada macaanka. Cudurka macaanka waa sokorta oo kacda kaliya. Sokorta oo dhacda waa cillad kale oo gooni ah. Inkastoo dadka macaanka qaba ay ku dhici karto cilladan sokorta inay dhacda taasoo la xiriirta daawooyinka ay qaadanayaan darteed. sokorta oo dhacda waxyaabaha ugu badan ee keena waxaa ka mid ah gaajada, qofka oo qabto shaqo xad dhaaf ah, dadka sokorta qabo oo qaata daawo culus ama insulin badan qaata. Sidoo kale waxay ka dhalan kartaa qofka cuntada uu seego isagoo xanuunsan. Sidoo kale waxaa la isku arkaa cilladan xilliyada la soomo sida ramadaanka oo kale. Calaamadaheedu waxaa ka mid ah madax xanuun, waxaa ka mid ah tabar darri, waxaa ka mid ah daal, waxaa ka mid ah gacmaha oo ku jareeyo, faruuryaha iyo daamanka oo ku kabuubiyoodo, waxaa ka mid ah indhaha oo caad ka fuulo, waxaa ka mid ah xanaaq badan. Calaamadahaas ayaa badanaa la isku arkaa markay sokorta qofka ay ka dhacdo. Haddii qofku uusan fahmin oo cilladan ay ku sii socoto, waxaa laga yaabaa inuu isku arko isku dhexyaac iyo hadalkii oo qofka khalkhal ka galo. Haddii markaa kadib aan lagu sii baraarugin, waxaa dhici karta qofka inuu koma u galo sokorta dhacda awgeed. cilladan waxaa la yiraahdaa qofka uu qabaa haddii sokortiisa markii la cabiro ay ka hooseyso 70 milligram per deciliter, taas oo dhiganto 3.9 millimol per liter oo ah cabirka kale. cilladan waxaa lagu xaliyaa kaliya in sokorta kor loo soo qaado, in qofku uu cabo wax macaan, sokor lagu qasay biyo ama nacnac ama chocolate, wixii aad sokorta kor u soo qaadi karo oo qofka sokor sii karo ayaa qofka la siiyaa. haddii qofka xaalad halis ah istaalka ku yimaadana faleebooyin sokor ayaa lagu xiraa si sokorta kor loo soo qaado. cilladan waxaa lagaga hortagi karaa haddii aad qabtid xanuunka macaanka oo aad qaadatid insulin, in cabirka insulinka aad la socotid, cabirka dhakhtarka kuu soo qoray aad si fiican u fahantid oo aadan qaadan cabir xad dhaaf ah. Sidoo kale xilliga ramadaanka markii la galo kale, maadaama aan 3 waqti waxna la cunaynin, insulinka waxaa laga yaabaa cabirka u baahan tahay cabir ka yar inaad u baahatid. sidaa darteed waa muhiim inaad dhakhtarkaaga la xiriirtid bisha ramadaan intaysan bilaaban si insulinta lagaaga yareeyo haddii laga cabsi qabo inay sokorta ka dhacdo. Sidoo kale haddii aad soomaysid, waxaa muhiim ah in shaqooyinka culus oo xad dhaafka ah oo jirka energy badan ama tamar badan u baahan inaad iska ilaalisid. Haddii kale waxay noqonaysaa inaad si fiican u suxuuratid. Marka sokorta dhacda waa cillad halis gelin karta qofka noloshiisa, laakiin si sahlan lagu sixi karo. waa xanuunada u baahan in aqoonta loo yeesho oo qofka hore ka fahmo. hore hadduu qofka ka fahmo way sahlan tahay, laakiin qofka hadduusan fahmin waxaa laga yaabaa inay halis xaaladiisa ay geliso. Matalan waxaa laga yaabaa oo mararka qaar aan aragnaa qof sokor qabo oo la yiraahdo xalis u jiifta ma soo toosin. dadka noocaas oo kale waxaa laga yaabaa inay sokorta dhacday inta uu jiifay, waana waqtiga ugu badan ee cilladaas ay qabsato dadka sokorta qaba, khaasatan haddii daawada ay qaadanayaan ay tahay daawo aad u culus, especially insulinta. waxaa cilladaas loo yaqaanaa dead in bed syndrome oo ah qofkii in sariirta soo dhintay laga soo qaado ama lagu baraarugo subaxii. marka waa muhiim haddaad sokor aad qabtid oo daawo aad qaadatid in cabirkaaga ay isha ku haysid oo aad la socotid. midda kale oo dadka badanaa isku arkaan waxaa waaye inuu qofka yiraahdo bisha ramadaan markii galbihii la gaaro madax xanuunaa isku arkaa, xanaaq badanaa isku arkaa, tabartu iga tagtaa isku arkaa, jareynaa isku arkaa. waxyaabahaas waxay tilmaamaysaa in sokortaada low ay tahay. marka haddii aad waxyaabo u adkeysan kartid oo caadi ah oo aad la qabsatay, waa laga yaabaa in afurka aad ku sugi kartid. haddii laakiin ay tahay wax kugu cusub ama isa soo taraayo, waa muhiim inaad wax sokor leh aad cabtid si cilladaas uga hortagtid. sidoo kale waa muhiim in la suxuurto oo la qaato energy ama tamar maalintaas aad ku howlgeli kartid. marka intaasaa kusoo gabagabeynaa cashirkan, waana mahadsantihiin.